qabri dahar waxaa bartankeeda mara toga weyn ee faafan sidoo kale waxa ay leedahay goobo biyo qabatin ah iyo caro aad u wanaagsan oo ku haboon dhanka dalaga beeraha hase yeeshee bilow cusub mooyaane ma jiraan dad ka faa'iideysanaya nimcada ilaahay uu isduldhigay haddaba mas'uuliyiinta xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka xoolaha ee maamulka magaalada qabri dahar oo u kurgalaya xaaladda beeralayda magaalada qabri dahar ayaa soo kormeeray qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeralayda ah ee wax ka beerta duleedka magaalada qabri dahar si loo ogaado xaaladda beeralayda iyo waxyaabaha u baahan in laga garab qabto madaxa xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka xoolaha ee maamulka magaalada qabri dahar mudane cabdiraxmaan mahdi cali ayaa sheegay in beeralayda ku howlan wax soo saarka beeraha ay dawladdu ay diyaar oo la tahay wax kasta oo ay kor ugu soo qaadi karaan wax soo saarkooda galabta waxaan booqasho ku tagnay dhammaan iskaashata beeralayda ka jira magaalada qabri dahar oo runtii ku howlan wax soo saar aad u wanaagsan beertani hadda aan ku sugannahay waa mid ka mid ah beeralayda ka jira magaalada qabri dahar waxaa la dhahaa iskaashatada Nasrullah runtii beertani aad bay noo farxad gelisay iyo beeraha kalaba waxaa ka muuqda juhdi badan in la geliyay inay soo saareen dalagyo aad u kala duwan runtii magaalada qabri dahar dadku waxay ka aaminsan yihiin inta badan inaysan ahayn meel wax soo saar loogu talagalay inaysan ahayn laakiin dhulkeena meel walba wax soo saarku haddii lagu beero wax badan baa laga soo saari karaa magaalada qabri dahar runtii waxaan aaminsanahay inay tahay meel wax soo saar aad u wanaagsan sida halkan inay kaga muuqato wax soo saarkeedana runtii wuxuu isugu jiraa dalagyada kala duwan sida geed miroodyada 120 geed oo liin dhanaan baa ku beeran 60 geed oo liin macaan sidoo kale babaay badan baa ku beeran iyo saytuun waxaan ku dhiirigelinayaa annagoo xafiiskii maamulka magaalada qabri dahar xafiiska beeraha iyo xoolaha inaan mar walba garab istaagnaan doono sidaan mar walba u garab taaganahay annagoo runtii ka caawin doono intii awooddaannada baahiyaha ay u baahan yihiin runtii isku dayi doono inaan daboolno hadduu alla idmo dhankooda qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeralayda ah ayaa sheegay in dhulka magaalada qabri dahar iyo nawaaxigeeda uu ku haboon yahay dhanka wax soo saarka beeraha balse ay u baahan yihiin caawimaad dhanka dawladda ah si ay wax soo saarkooda ay kor ugu sii qaadaan magacaygu waxaa la cabdiraxmaan sheekh cali maxamuud baa la yiraahdaa waxaan ka mid ahay odayaashan degmada qabri dahar deegaankeeda beertan waxaa la yiraahdaa iskaashatada Nasrullah baa la yiraahdaa waxaa la sameeyay oo aasaasnay 29 ilaa iyo waqtiga xilligaas kharashna waa ku bixinaynay waqti aan faa'iido ka helay waqti aan faa'iido ka helin ba way lahayd hase ahaatee intaa waa la soo ku faynay maal gelin baan ku wadnay si aan rajayno anagoo rajaynayna inaan waqti chance u helo inaan deyrno oo xafidno faa'iido badanna ka helo marka waa laga faa'iidaa waxaana ku beeran noocyaalka kala bedelan dalag sida geed miroodka oo kale 120 geed oo liin dhanana way ku beeran tahay 60 geed oo liin macaan anu maleeyay qaarkeed geed qarboos leeyahay iyaguna waa ku beeran yihiin waxaa ku beeran geedka cambashooga la yiraahdo 25 geed oo cambashooga waxaa ku beeran 26 geed oo canuuni ah waxaa ku beeran 15 geed oo hasha la yiraahdo loo yaqaano rumaan waxaa ku beeran 2 geed oo timir ah oo mar bay dhaleen ka bacdi mar labaad way dhali waayeen wax ugu garan weyn timir baa ku beeran iyaduna gacan waanu ka helay waayahan dambe councilka oo awal hore taan isagoo lahayn qaab beereedkiisa uu tabar yaray laakiin waqtigeed dambe ay soo yarjeedsadeen oo dadaaleen waanu ka helaa siirkaanu ka helaa qalabka beerta lagu falaan intay hayaan waanu ka helaa sunta cayayaanka waanu ka helaa marka baldoosar baanu u baahnaan lahayn inaanu helo oo geedahaanu iska gurno biyo xidheen baanu u baahnaan lahayn inaanu helo oo baldoosar biyahaas yaana dhaafo biyaha inaan u xidhno waa u baahnaan lahayn magacay waa maxamed cumar yuusuf waxaana gudoomiyaha iskaashatada beertan waxay ku taala beerta waxa la yiraahdaa sagal waxay kaga taala koonfur galbeed maamulka magaalada qabri dahar beerta waxa ku beeran saytuun moos babaay adu fruit crop waxa la yiraahdaa midhaha crop-ka la yiraahdaa fruit crop-ka hadda ka hor xitaa waxaan tijaabinay midhaha la yiraahdaa cereal-ka oo daraasaad ku sameynay research in macnaha carradan ay ku baxayaan iyo kale xitaa waxaan ogaanay inay qamandidu 100% qamandida ka soo qaaday tuli guuleed jaaban ku sameynaa carradan qabri dahar maamulka magaalada qabri dahar ay leedahay xitaa size-ka waxay ka weynaatay macnaha firda weynka marka aad ka fahmaysaa maamulka magaalada qabri dahar carradeedu ugu yaraan 50 kilomitir ku wareegsan maamulka magaalada qabri dahar haddii midho nooc walba laga beero hadday qamadi tahay hadday nooc cereal nooc ay doonaan noqotee 100% bay ka soo jawaabaysaa marka waxaa nasiib darro ah carrada noocaas oo kala ah dadka haysta inay macnaha la fahmi waayo oo la fahmi waayo khayraadka Ilaahay ina siiyay
waad artaan indhihiina saytuunkii waan cunnay waana iibgeynaa basbaaskii waa noo baxay oo kana oon iibgeynaa in badan aan iibgeynay marka anigu waxaan dhihi lahaa xukuumadda deegaanka Soomaalidu inay qabri dahar soo fiiriso dhulka qabri dahar ku wareegsan oo 100 kilomitir ah waa dhul 100 xitaa waxaan aaminsanahay anigu qamandigan tijaabinay hadda ka hor waana laga duway iyadoo soo baxday oo si fiican u baxday baa la duway inay ummadda sagaalka gobol ee kale ee deegaanka in cunto ahaan looga saari karo gobolka Qoraxay marka waa in si fiican loo soo fiiriyo waa gobol ku haboon ama maamul magaalo ku haboon inuu cunto u soo saaro dhammaan inta kale ee deegaankeena Lumaan Cabdi Axmed SRTV magaalada Qabri Dahar